adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo waxa aad tahay iyo maaragtay waxa dhibaatada kugu dhacday iyo gurigan burbursanaa dhex taagan tahay magacaaga ku bilaabo. anigoo ah Axmed iyo laba xidigle Axmed iyo ka tirsan ciidanka gobolka qaybta 12 Abriil oo khayr sodon lixaad waxaan deganay halka aad hadda u jeedaan ee carruurtu ay jiiftaas oo ay ku farsayiin galab ay tahay 14 bishaan hadda aan ku jirno 18 maanta ay ka tahay waxa ay soo weeraray gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariiso anigoo jiifiyay wax aan ogahay ee dhibaato ee aan geystay aysan jirin wax digniin hooleysi aysan jirin waxaan ka war helay baala guriga qajajacinaysa haddaan soo baxay banaanka aan soo istaagay waxaan yiri mar maxaa dhacay dhibaatadana intay ku timiday waxaa leeyiri banaanka istaag maxaa kaaga jira guriga waxaan yiri guriga wax allaala waxaan ku noolahay dadkii deeqii hayb waa ku jiraan hayta maxaa ka jirin aan soo u jeedin waan hadda diga soo bixisaan waxaa leeyiri kala soo bax way ku jira guriga waa aan galay waxaan ka soo saaray bustoolad iyo laba qasnadood waa lay dib dhaafana waa ka daba noqday waxaa la iga soo qaaday lacag ku jirta barkinta hoosteeda oo ah $8,600 iyo milyan shilin Soomaaliya lacagta waxaan lacag banaanka nimaday waxaan ku dhahay lacagta mas'uuliyiinta idin wada ee hadda hor joogta aan u dhiibto sidii haddaan Yariiso baa wuxuu mataqaanaa amar ku baxshay in la dilo amara la sii askartii way garaaceen lacagtii waa la qaatay mobilada waa la qaatay gacantaasa ku birim foostoon aan dhahaayay waraan lacagta aan gudoomiyaha u dhiibto ayadaa liif lagu garaacay saasay u jeexantay jir ilaa dhabarka dambo ilaa lugaha aan ku taaganahay meel aan nabar ku aalo kuma jirto ool waxa lagu dhiftay liif iyo baad shaatiga haddaan siibo wixiiba Soomaaliya hadda qasho Soomaaliya ku jirta idaaba yaabaysa hadda laakiin waxaan si gooniyan u tusay wariyahan maahan hadda kuma soo dirin muuqaalka waxaan codsanayaa dawlad codsiyaan u diray mar labaadaan u diray waxaan tusay carruurtiidii waxaan tusay meeshay ku nool yihiin waxaan shalay ku noolaayeen nolol wanaagsan ee nolol Soomaalinimada dadku intay mataqaanaa u badan yihiin maanta laakiin waxay taagan yihiin saara male maaxuunay wax ku cunaan male hoy ay ku idaan male jiif ay ku jiiftaan male meelay xirfadaha roobkan daahad u jeedin ay ka galaan waa kuwa gadaashayda taagan dad saraakiil Soomaaliyeed dad Soomaaliyaha wax soo aruursho meeshan noo keenay maanta waa mahadsan yihiin dadka Soomaaliyeed oo soo gudbay laakiin dawladda waxaan ka codsanaynaa maanta waxay joogtaa maalin ay ninka ragga ma hay u xukumeen nolol aan hadda sii raadiyo ima muuqato nolol aan hadda maanta sii raadiyo adduunka iyo muuqato sababtay tahay dadkaygii oo wax aan qaban karaa aysan jirin oo hantidoodii wax la joogo iyo gool u tira dhigay jiifkii xataa lagu jiifanay waxa ku jira meesha adkeedaan yihiin raashin ma yahay waa dadka xataa ilmuhu ay ku iibirabaan meesha ku jira wax mataqaanaa u dhiman ee Soomaaliyeed qof Soomaaliya ku dhicinayo ima dhiso aniga saddex joorna meesha hadda aad u jeedaan cadawga markii laga bixilaayo maraan ku dhaawacmay mar kale waxaan ku dhaawacay jubbo gudoomiyaha gobolka Banaadir intaas wuxuu joogay Yurub uu jiray oo dibadda uu jiray ilmihiisina waa jiraan maanta ma anfacayso inuu carruurtayda haweenkayga bartaas soo dhoobo asagu dego asagu hotel degay mukayf ku dhex jira ma anfacayse haddii dawladdu jirto waa in sharcina kala saaro haddii kale ma suuragelayso inuu nolol wanaagsan ilmihiisa ku noolaadaan anagu jeegada dhexdooda ku jira sida baahli asagaana geeyay meeshii hadda maanta taagan yihiin وما صنتها لو حدق لأحمد بيولي وحنا شاكتي إن وقصور جنريسو جري أتكلم أنت الجمال عبد العزيز يريد كوانبري هالكاس أو ساعد مركز وحيد ساعد عصر ليقة عم بمارتي سجال ساعة مسدح ذا كلامنا مسدح سومالو تقارنه وحيد وقت رمضان ومارته ومدو أفريقيا دي سنة حلقي عيدا كوكو إيمانا أي واحد نشاكتي إن هالكاسي أي مارتي أي أفر أي واحد أي لديارين أي أيضا واحد تحقيرين عم بمارتي هذا الأحمر لكن أتكور هالشيء تقال يهل الدرو قدوميها قبل كبرادر مو شاكتي إنها تهينين سرقال أو كتر سنعيدك وحوق ذلك قدوميها قبل كبرادر أنا أفكي
gaaro waa lay ogolaa laakiin saraakiisha ciidanka wataan waxaan u sheegay inaan nin sargaalo ahay halkaana aan deganahay waqtigaana waqti ka horreeyay digniin leysi aysan jirin dhibaatadan inaan lay gaarsiin oo nabaduna kala dhex marto sida afkayga hadday ka dagaalamo bilaabo wax kaleetood oona dhex maray oo ilaahay abuurto oo digniin oo leysiyana ma jiraan waxa qof isoo dacweysay shakhsi yahay meeshaan dacwaan ku qabnaa tiraan ma aysan dhicin oo hore uma dhicin hatta qof dacwo ii qabtaa ma jirto kaligii gurigankayga gudoomiye wuxuu ku warbaxshay sida la sheegay oo meediya ka dhageystay iyo si baasaan laygu soo sheegaba meesha inay deg ku tahay dan gurigayga kaliya ma ahane haddii deg ku tahay waxa ahaale dirbigaan kala jeedaa guryahaas baa igu yaala meeshaan uu saraha ku yaal u jeedin gurigaaskayga danguud kaligiisa dow yahay dowladdu waa inay caddayso haddii kaleetood arrintan waa in dowladdu wax ka qabato waa nin beegsi umana dul qaadanayo maanta wixii ka dambeeya waa noo dagaal Soomaaliya ha ogaato dawladdu ha ogaato caalamkuna ha ogaato biritu haddii wax laga dhihi lahay arrintan waxay ku dhacday ninkan waa dambiil la dhihi lahay maanta wax ka qabashay leedahay arrinteeda waa maasanta